أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهجاك وعلي حرسي كاشي على كويرة ومانتي بنانك مريا وشوجاها بدأ بارك بي عند ستوكهولم waxaan maanta soo eegay bal xaaladda Sweden dadku inay guriyaha joogaan iyo xaalka sida uu yahay Swedishka waa dad cajiiba ayagoo shaqaysanaya oo magaaladooda jooga oo dukaamadooda u furan yihiin ayay haddana is ilaalinayaan oo taxadarayaan waxaan baawur meeshaan safana arkaysiin waxa dadka baawurtaan iskale waxay ku jiraan dukaankaas weyn ee IKEA lira IKEA oo alaabada guriyaha iyo maacuunta iyo sariiraha iyo wax walba gada ayay joogaan marka xaaladoodu waa iska caadi waa iska shaqaysanayaan laakiin waxay adduunka uga duwan yihiin dadkan waa dad aad isku ilaaliya waa dad aad iyo aad isku ilaaliya Swedishka markii hore dabacadooda waxay ahayd ba inay dadka isdhex gala oo dadka isku dhawaada ma ahan waxay sameynayaan waa ayaga iskood u kala durkahaya waana dadka waxa afka Swedishka lagu yiraahdo ensam boende kaligood nool waa dadka kaligood nool ee guriyaha kaligood ku nool dadka ugu badan Yurub number 1 waa ayaga kaligood ayay nool yihiin dad kale lama noola inta badan waa number 1 ayaga ah Yurub dad badan oo familyo badan ma ahan qoyskii wuxuu ka kooban yahay qof ama laba qof ilmaha waa aday u bataan laba saddex ka badan ma dhalaan marka Swedishku waa maxaa la yiraahdaa maalintii Trump wuxuu yiri waa inaan sida Sweden noqonaa America hadaan nahay oo aan shaqaysanaa dukaamada la furaa dadkuna ay guryahooda joogaan dadka Swedishka uma baahna in loo sheego guryaha jooga in la yiraahdo uma baahna ayaga iskood u joogaya haday xanuunsan yihiin shaqada ma imaanayaan haday wax yar iska dareemaan ayaga kaligood isgelinaya go'doon marka dukaankan dadka ku jira haday ugu yiraahdaan wax waay waa dad aad iyo aad u badan waa dad aad iyo aad u badan waxay kala sameeyaan markii dukaamada dadku ku bato banaanka shaqaalaha la soo istaajiyaa dadka ka baxa qof markuu ka baxo qof baa galaya laba markay ka baxdo laba galaysa saddex markay ka baxdo saddex baa galaysa ma ahan yaani dad oo isbuurto dukaamada maartay ku shamuuma ma ahan si degan oo ilbaxnimo leh oo ayay maartay oo taxadar leh ayay u adeeganayaan waxa marka dadka Soomaaliyeed aan kula talin lahaa nidaamka noocaana waa midka Soomaaliya anfacay maxay yeelay Soomaalidu waa dad xoogsata oo masaakiino dhaqaale ee dawlad siinaysa ma jirto haday shaqada ka istaagaan marka waxa ay tusi doonaa fayl bay ku jiraan faylkaas waxa arkaysaa qof markuu ka baxo qof kale galahaya dukaanka hadda waxa arkaysaa markii qof ka baxo qof kale galahaya waa ay tusi doonaa mar dhow habka noocaana waa habka ugu fiican laguna shaqaysan karo cudurka la iska ilaalin karo laakiin waa inay dadku is taaban oo is salaamin oo isku soo dhawaan oo ay maaragtay sheeg aysan sidii caadada aan jirtay Soomaalida oo kale hab la isiin lees kor in la iska salaamo in maaragtay 2 mitir ilaa 1 mitir iyo bar la isku soo jirsan in qofka hadii uu xanuunsado uu gurigiisa joogo oo hadduu isbitaal gala aan la booqan qofka gurigiisa xataa hadduu yimaado oo la booqanayo waa in qofka aan loo soo dhawaan oo qol gooniye la geliyaa Soomaaliya waxaan qof markuu jirado halaada kaamirada dhacday qof markuu jirado qof baa waa la soo booqanaya halkii qof 40 qof ayuu sida cudur caadi oo kale ayuu waxa la yiraahdaa u soo booqanayaan taasna ma ahan waa qalad waa arkaysaa hadda dukaanka waa u jeedaan dadka waa taagan yihiin fayl baa lagu jiraa waxa faylka lagu jiraa meeshaas waa meesha ingong waxa weey macnaha meesha entry wiila luqadda Ingiriiska waa gelitaanka dukaanka dadku fayl bay ku jiraan faylkaas waxay ugu jiraan markii dukaanka dhinaca kale oo ay tusi doono laga baxo ayaa maxaa la yiraahdaa isheeg qof kale galaya oo jeedaan fayl lagu jiraa kulligood dadka dhan fayl ay ku jiraan halkaas fayl lagu jiraa qof markuu ka baxo qof baa galaya wax iswaalaya male dadka iskuma dhadhawo oo jeedaan kala fog yahay hoos la iskaga ma jiro والبحنوة كم إذا إن يعني أو أي
dadka Soomaaliyeed inay uga daydaan ay tahay suuqyada iyo markay joogaan inaysan isku dhadhawaan oo aysan hoosta iska gelin dhinacan kale waa meesha laga soo baxaayo waa iridda dhinaca laga soo baxaayo dhinacaas laga soo baxaayo markaa ujeedaan halkaasaa dad ka soo baxayaan oo arkaysaan iriddaas markii laga soo baxo ayaa dadku maaragtay isheeg ay halkaa iridda geeskaa waaye waa ujeedaan meeshaas ayaa laga soo baxayaa dadku waa soo socdaan markii xagga laga soo baxo xaggaa dadka laga sii daynaya xaggana shaqaalaa taagan way isla hadlaayaan waxaa leeyahay intaas qof baa soo baxday intaas qof soo daayay konton qof hadday soo baxdo konton qof baa la soo daynayaa haddii ay 20 soo baxda 20 la soo daynaya haddii konton soo baxda konton la soo daynaya waa dadka dhan waa dad protocolaatiya oo ilaalinaya sharciga iyo amarada ay siiyeen dawladooda iyo amarada dhaqaatiirta waddanka ay kula taliyeen dadka marka halkan ku jira waa 2,000 oo qof ka badan ayaa ku jira deegaanka marna la isku soo dhawaanaa mana fahmaysid in meeshaan ay ka jirto buuq iyo waxaasiyo gudaha ayaa u geli doonaa insha Allah tacaala asagana waxaa arki doontaa in tusi doonaa sida ayaguna ay maxaa la yiraahdaa isku ilaalinayaan ayaa arki doontaan waa markaan gudaha gala ayaan haddana idin soo noqon doonaa aad ayaa mahadsantihiin Soomaaliya waxaan kula talinayaa haddii qofku xanuunsado inaan loo tegin oo la soo booqan maxaa yeelay halkii bukaan 20-30 qof ayuu qaasiinayaa kuwaasna kuwa kale sii qaasiinayaan qofka waa ama gurigiisa lagu hayo oo go'doomiyo lagu go'doonsho guriga ilaa ay neeftu ku dhigtana aan isbitaal la geyn maxaa yeelay qofka ilaa neeftu ay dhibto gurigiisa ayuu joogay daawo la siinayo isbitaalka lagu siinayo ma jirto in la karantiilo qandhada laga jabsho haddii ay hawadu dhibto laakiin wuxuu u baahan yahay dhakhtar iyo in la siiyo oxygen ayuu u baahan yahay marka waa in salaamayaa sidaas ayaa la rabaa in dadka Soomaaliyeed ay ku taxadaraan oo ay aad iyo aad isku ilaaliyaan waxaa hadda aad maqlahay cudurradii ku soo saaciday qaar ahaan magaalada Muqdisho waa in dadku ay taxadar sameeyaan waa inay kala fogaadaan waa inay gacmaha dhaqaan waa in ay cunto wanaagsan oo nafaqo leh cunaan isna ilaaliyaan aad ayaana la rabaa in loo taxadaro cudurkan ka hortag ma ahana ka daba tag ma lahan wagaag hadda waxaan galayaa safka oo jeedin laynka meeshan laynka saana loo galayaa xarigaas raacaysa jidka waa iska daba wareeg ila meereyso waxaa la diidaa qofku inuu si toos ah ay u tagaan saasaa lagu soconayaa markaa istaagaysid inta qofka hoostaba ka gelaysid waa ka durkaysaa ilaa 2 mitir camal ayaa u istaagnaanaysa xagga taagan wiilkaas shaqaalaha xagga taagan wuxuu la hadlayaa qolada kale dhinaca kale taagan hadda inta qof ee soo baxda ayuu leeyahay kuwa kale soo daaya oo ujeedaan yarka jeeb gacmaha kula jira waaye mikrofona dhigta ugu jira intaas qof soo daa leeyahay waa la soo deynayaa xagga ka soo baxaya marka agaag hadda gudahan galay gudaha waxaa lagu leeyahay sidaas u istaaga dadka intaas inay isku jirsadaan ka badan lama rabo waa ujeedaan sida loo kala fog yahay there's a consideration for each we will all gudaha lama ogola kaamarad laakiin hadda waa deminayaa laakiin waxaa arkaysa meesha halkaas ayaa ujeedaan Englisha ku qoran af Swedish ku qoran you can read Hall of Stone macnaheedu waxa waaye ka fogow the Hall of Stone annagu waxa waaye waa in la kala durkaa gudaha aadaa loo shaqaysanayaa wax isbuuranaya iyo wax oo ma jiraan dadku waa kala fog yahay gabadhaas shaqaalaha qof ay caawinaysaa inta u jirta arag dadkaas ay caawinay mana u dhowa waa ujeedaan waxaa meel walba waxaa ku qoran ha isku dhowaanina meelahaas calaamadaas jaallaha ama huruudda waa qofka intaa u jirsanaysid ayaa loogu talagalay marka sidaasaa la rabaa in loo kala fogaado aan hoosta la iska gelin
in hoos la iska gala ma ahan waa in la kala durkaa markaad wax gadanaysid markaad wax fiirinaysid qof hoosta uga jira ma leh dadka wejigooda waa qarinaya maxaa yeelay qaarkood inaysan ogolaan ayay u badan tahay ujeedku wuxuu yahay in la ogaado in dadku ay shaqaysan karaan laakiin la kala durko cudurkan waxa ugu weyn ee lagu ilaalin karo waa in gacmaha la dhaqo dadkuna ay kala durkaan qofkii xanuunka isku dareemaana uusan ummadda soo dhexgelin ee uu ka fogaado aad ayaa u mahadsantihiin waa ismaqli kale mar kale waa mar kale iyo weli waxaan ku guda jirnaa maantay waan dhex maraynaa magaalada Stockholm gaar ahaan xaafadda Barkarby oo aan u soo baxay bal inaan soo qiimeeyo xaaladda aan idinla wadaago sida ay u socoto nolosha dalka Sweden gaar ahaan magaalada Stockholm oo dadka ugu badan ay cudurrada laga helay cudurka COVID-19 iyo ama loo yaqaan coronaviruska hadda se loo bixiyay COVID-19 marka hadda waxaan ka soo baxay xaafaddii Barkarby roob ayaa da'aya marka xoogaa waxaan isku dayayaa bal inaan muuqaalada intus magaalada siday u kala socotay iyo wixii igu soo kordha sida dadku u nool yihiin qaabka macnaha ii sheeg sida ay hawsha u socoto waxaan filayaa inaad arkaysaan magaalada caadi u kala socotaa baabuurtu waa yaacaysaa dukaamadu waa furan yihiin dadku waa shaqaysanayaan waana la kala nool yahay marka wax xiran ma leh weliba maxaa la yidhaahdaa ii sheegaan maqaaxiyaha lama xirin meelaha oo caadiga oo meelaha qaarkood ayaa la xiray sida boobabka qamrada lagu cabay iyo boobabka xataa waa furan yihiin macnaha meelaha jiimamka qaarkood waa furan yihiin meel la xiray Sweden way yar tahay meelo dhidhifaa la xiray dadku si caadi ay u shaqaysanayaan magaalada wax walba waa kala socdaan waa la nool yahay waa la shaqaysanayaa ilaahay wixii cunaa naga hayo dhibaato wixii Allah naga hayo loo soo duceeya adinkana waa idin soo duceynaynaa fadliga ramadaanka in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu naga kor qaado cudurkan xanuunka ee ummadda dhan saameeyey iyo cudur kasta keliya COVID-19 ma aha cudur dhimashadu keligeed intaas keliya maaha dadka caadi bay u dhimanayaan cudurro caadi ay u dhiman jireen weligoodna way dhiman jireen laakiin dadkii baa waxaa u malaysaa inay iska iloobeenba cudurradii kale loo dhimanayay iyo xanuunnadii kale hadda xaafaddeeda ayaa u soo socdaa waxaan ka soo baxay Barkarby highwaygaa soo fuulay ama jidka roob baa si cud u da'aya qabow baa jira xoogaa baabuurtu waa u jeedaan sida maalmihii caadiga ayay u socdaan waqtigaan oo kale baabuurtu waa maalin axad oo laga soo laabtay xaafadihii dadku ay u tageen booqashada oo nin walba shaqadiisa berri isku diyaarinahay taariikhdu waa 3 bisha 5
2020 magaalada Stockholm dalka Sweden. Soomaaliya waxaan ka rajeynayaa insha Allah tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu cudurkan ka qaado. dhaqaatiir badan ma joogaan, isbitaallo male, meelo dadka lagu karantiilo male. waddamadii horu maray oo barwaaqada dhaqaalaha haystay ayaa ka qaylinaya oo dadkii guryihii lagu hayn laayahay. weliba xilli qorraxdu hadday soo baxdo dadkan ma joogayaan guryaha, bannaankay ayay u soo baxayaan. sababta sanad 8 bilood ayay ku jireen mugdi oo qorrax aysan arkin. marka sida geedkii gabadayaha oo kale ahaa ayay qorraxda u raadsanayaan. waana maaragtay ii sheeg noloshooda ayay ku xidhan tahay. qorrax la'aani waa nolol la'aan. halka adinku qorraxda ka qaylinaysaan, meeshaan qorraxda waa ka dahab. Soomaaliya dhulka ay haysato ilaahay siiye nimcada ah, alxamdulilaahi inay inta yidhaahdaan dhulkooda ka shaqaystaan oo dhistaan oo nabadda iyo amniga ka shaqeeyaan ayaa u wanaagsan. dhaqaale iyo barwaaqo iyo wax walba oo meeshaas ayay ku jiraan. meeshaan dhabacaan iyo qabowgan iyo waxaa lagu jiraa guryaha in 24 saac darashadaha laga soo jeedo, dhar culus la qaato, maalintii oo dhan maaragtay ii sheeg aadan qorrax arkayn, habeenkii ay qabow tahay, maalintii qabow tahay, dhulku waa iska wada mugdi. sidaasuu dhabac u leeyahay. ilaahay subxaana wa tacala dhulka inaan noo hagaajiyo, ummadda Soomaaliyeedna qalbigooda ilaahay isku soo jeediyo. waa bil Ramadaan, ha loo duceeyo dadka. ilaahay dalkeenna ha noo dejiyo, ilaahay dadkeenna ha noo dhiso, qalbigooda maaragtay Allah isku soo hagaajiyo. fadliga bisha Ramadaanka ilaahay subxaana wa tacaala ummadda Soomaaliyeed ha ka dhiga ummad danahooda garata oo qayrkood la jaan qaada oo iska daaya dagaalada iyo dilka iyo xiqdiga iyo maxaa la yidhaahdaa ii sheeg xaasidnimada ay isxastaayaan iyo nacaybka isku qabaan. dad walaalaa oo dal wada leh oo hal luuqad ku hadla oo hal dhaqan leh oo hal jinsiya inay isxastaan waa laga fiican yahay. inay islaayaan waa laga fiican yahay. inay isdilaan waa laga fiican yahay. weligood ba islaynaya waxna ma kala helin. boqolaal sano isdilaayeen waxay kala faa'iideen ma jiraan. meelal shidaal laga burqanayaan iyo dahab iyo diamond ma kala qabsan. nin waliba berrinkiisa ayuu joogaa. welina dilkii waa socdaa. ha la daayo dilka, nabadda ha la qaato, ilaahay ha laga baqo, ummadda ha la isku soo jiido. siyaasiyiintow ilaahay ka baqa oo dadka siyaasadda aad ku wareerinaysaan ka daaya oo ka heshiiya oo isku soo jiida. ummaddaan awal bina idinku diinan ayagaa shaqaysanaya, amniga iyo nabadda ka shaqeeya. waxaan idin leeyahay Ramadaan kariim. ilaahay subxaana wa tacaala naga aqbalo. 10kii berihii hore noo dhammaatay, 10kii dambe ayaan ku jirnaa, 10kii dhexe ayaan gelaynaa. 10kii hore raxmad bay ahayd. raxmaddiisa ilaahay nagama qadiyo iyo naxariistiisa. 10ka dambena ilaahay subxaana wa tacaala noogu dembi dhaafo. 10ka kalena ilaahay naartaa nooga xoreeyo. 3daas 10 wey Ramadaanku. 10 kale oo raxmada iyo 10 dembi dhaafa iyo 10 naarta la iskaga xoreynaayo. ilaahay inta waan alla waafajiyo. gabadh baa ugu xiran raalaada. waa idinkaas waa idin salaamay. khayr ayaan idin rajeynayaa. waxaan idin leeyahay channelkan subscribe dhaha, like-tana ka xastinina, siina share gareeya, commentiskana waa dhankiina. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.